بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى سيدي عادتنا أهيد تفسير كمركو دمادو الشيخ أيام وحن كفايدة السنجرني سؤالير أو كوبان حق عددك معنوي إنه كفرديا سؤالين ما أنتوا إسكا كوبان يهين sheekh jaziitum khayran saa'ilkan wuxuu leeyahay ninka haddii uu xaas iyo reer leeyahay oo qof dumara dabcan xaaskuna ay u dhashay caruur kadibna ninkaas uu gabadhaas iyo caruurteeda ay ka waayaan nafaqadooda iyo dhammaan wixii aradkooda ahaa asaguna uusan shaqaynin wax cudurdaar ahna uusan lahayn oo uu u shaqaysan karin sida qeyrkii in laga furo sharciga muxuu ka qabaa mana ka furi karaan gabadha xigtadeedu ama qofka waligeeda بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى هدي أي حاسكو كويدو نكذا حقوق دي واجب كأهيد أما حقوق النفقة هالنقطة مصروف كي مرشدة أما حقوق جوشة هالنقطة هديو جودن كريوايو حق waxay u leedahay inay u sabirtana waa sida fiican hadii ayna u sabraynin waxay xaq u leedahay inay maxkamad tagto oo ay fasaq dalbato wa madhhabu طائفة من العلماء وانا سيده صحدا لان اصول الشريعه waxaa kamida دفع الضرر وان دبك جيره لا qaado لا ضرر ولا ضرار in la dhibo ma siday dumarku xaq u leeyihiin xaq loogu leeyahay iyagu xaq u leeyahay ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه guriguna saas ku dhisay hadii markanka xuquuqdii waajibkeed laga waayo waxay heli kartaa inay dacwayso waana su'aasha shatrigeeda ama qaybteeda dambo yaa ka furaya hadii marka ay noqoto in fasaq iyo ka furid ay timaado markaasi waxa qaban kara waa jiho maxkamad waay ma aha wax ay cid walba sameyn karto ma wadaad meel jooga ma sameyn karo fasaq sida hadda dhacdo kale wadaad meelahan ku jirjira la laabiyada baa waraaq isaga qora dumarka waad fasaqanta xoogaa shilmaana way ka qaataan marka ma laha awood ayagu awood maxkamadeed waa awood jiha awood leh ayaa qaada fasaqa ayaduna waxay fasaqa sameeysaa markay kiiska baaris ku sameeyso daba gasho waxay gabadhu sheeganayso masaxba maxaa ka jira marqaatiyada raadiso xal kale ma heli karaayo guriga lagu badbaadin karo ku sii wada noolaan karaan markay baaristeeda soo dhamaysato ayaa qaadiga marka haday u soo baxdo inay maslaxadu tahay in la kala diro markaas uu fasaqaya waa awood marka maxkamadu leedahay ma aha awood qaraabadeedu ay leedahay oo intay u tagaan oo sida hadda dhacdaba mindi ku qabtaan ama qoriba ku qabtaan fur awood ama ilaha iyaga qaraabaduna ma laha iyaduna ma laha cid kale ma leh fasaq hadaad maqasho sideedaba jiha awood leba iska leh ama jiho dadka meesha joogay ay u aqoonsan yihiin oo loo ictiraafsan yahay baa iska leh hatta awoodeedu haba iska yaraato marka masaladu sidaas weeye waana madhabka culimo badan ay qabaan waxayna ku saleysan tahay asal ahaan fasaqu waqtiga nabiga ma dhicin sallallahu alayhi wasallam waqtiga nabiga waxa dhacay furiin caadiya iyo waxa khuluca leeyahay dalqadaha in dalqada iibsiga waxaan anaga u naqaan labadaas waqtiga nabiga dhacay laakiin fasaqa oo awood maxkamadeed xariga lagu gooynayo lagu furayo waqtiga nabiga ma dhicin waqtiga waxay dhacday khulafada waqtiga khulafada raashidiin way dambeysay kadibna culimadu saasay u taqriiriyeen iyagoo waafajinaya qawaacid shariicada oo in gabadhan dhibka laga dulqaadaa gaar ahaan sida su'aasha ku jirta haduu ninku uu yahay nin marjay ah oo isagoo shaqaysan kara shaqagab ah oo isagoo reerkiisa xusoo saari karaya uusan sameynaynin waa nin wax dayacaya naam
يا حروتة السيدي أو أنت وحقول يا ضايب وحقوله يا أبود وحقوله وبيليا حكمته هذه المها بيلي واي شقيب يقوله المها بيل كودي كين هذول شغال عام بأنا يدنا شغال لور هذينا دي اللي دورهم هو هاي حمال هو صادي الله يلا حتى هل نجح حمال بالدي هذول ديدنا ولا حري لأن واجب ضياعي نينك واجب ضياعين ولا تعزيره تعزيرته قدريت دي قياس دي محكمة يقول نقطة واحد إذا ما وواحد إدبين تلاقي نعم جزيتم خيرا سائلكم لو دحوليه هاي طبعا وقف دمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ وانكم سلامي سلام كدم نبان اسم هرسني قربها جوجا أنيجانا الصومالية أيان جوجا سند يسدد بيل بانكم مهرسنة هاي شنتي بلود الرئيسي وإبيلي لكن انتي كدم بيسي وحبا إيما صادرين كدب waxaan ku iri warqadayda ii soo dir wuxuu yiri haddaad warqadaada rabto isfuro oo meherkaaga isku furo waayo adaa dalbaday warqadaada sidii ayuuna iigu soo diray warqadii wax meher ahna ima siinin ee meher ma ku leeyahay sharci ahaan suurada su'aasha ku jirta waa khuluc watan hadda sheegaynay haddii dalabka furitaanku xagga haweenayda uu ka socdo iyo haddii kaleba ninku waa dhihi karayaa dii isagu dhibku ka socdana dee intuu haweenaydii dhibo danada dalqadaha iga gado sax maa waa dulmi saaran waa laakiin haddii ay ayada ama maslaxaba loo arko in la kala waxeeyo oo wixii xuquuq iyo meheriya loo celiyo sidaan uu ku sii daayo waa sax mucaamalo sax waana mid fi suurati al-baqara ilaahay ku sheegay oo ilaahay yiri tabaaraka wa taala fala junaha alayhima fima iftadat bihi wixii isku furato dambi male markaa mid labadooda midna dambi ka soo gaari maayo khulucaasi marka waxa weeye haddii uu dhaco oo sidaa heshiis lagu noqdo oo sidaa lagu furo haweenayda wax meher ma leh laana meherkaagii waxbaad ku gadatay intaad wax ku gadatay haddana halaysiiyo ma saxba maya waxbaad dhaafsatay si caadi haddii haweenta loo furo sax meherkeedu way leedahay laakiin haddii ay raali ku noqoto inay dalqadaheedii meher ka dhaafsato meeshaasi meher ma yaallo meherkii waxbaa lagu gatay وانا تي وقتي نبينا دعدي صلى الله عليه وسلم وينيدي نينكيدا سلوكتي نبي uga sheegatay صلى الله عليه وسلم nabigu intuu u yeeray uu ku yiri muxuu ahay ayadii buu u yeeray markaas wuxuu ku yiri ma u celinaysaa beerti wixii uu ku siiyay meerkii ma u celinaysaa haabeyti ma u celinay isagii buu nabigu yiri صلى الله عليه وسلم ka qaado fur buu nabigu صلى الله عليه وسلم marka waa khuluc baa la dhahaa وانا صح ساهدي وكدعنا ملها مهر ملها وينيد لكن ميد با مهمين لو قال او عامده ان بدن كقرصونته بل ودada qaar kood bay ka hoos baxdaa maxay tahay hadii qaabka furitaanku khuluc ku dhaco iyo dalqadihii oo wax la dhaafsaday haday ku dhacdo haweenaydaasi wax cidaa oo ninkaasi ugu jirto uu ku soo ceshan karo ma jirto rajciye male وما ضلق بائنا واي انتو هذا ودلقديه كيبسدو مهركي او قاتو هذانا وان كسو عشدي مصاحبه عداله الرواي وحبان كلا قدرني هذانا وان كسو عشدو عصمديدا كسو نقطي صح ما سيداس دراديد مربا هدو فراقيه كلا تقو خلع كدعو نينكاسي اود ما لها انو سو عشدو رجعتو ده وطلق بائنا way tagtay laakiin haday rabaan guur cusub ay isguursan karaan iyadu raali ku tahayo reerka laga doonayo ma sha Allah guri cusub loo dhigayo meher cusub loo magacaabiyo hawshaas waa ya marka iyada way sameyn karaan mar labaad laakiin waa hawl cusub waay
waxaan suuroobi karin waxa weeye adiga haweeneyda haddaad xaaskiisa ninku dalqad ku furo ama dalqadii labaad ay tahay inuu reerkeedii ka doono miyuu u baahan yahay bal iyadu inay raalli tahay uma baahna rajactu bas u baahan waa soo ceshaday iyo marqaati inuu sameeyo wabuculatuhunna axaqu biraddihinna waa ka ilaahay qur-aan ku yidhi laakiin taa way ka duwan tahay rajactu ma laha mar haddii furitaanku uu ku dhaco khuluc ku dhaco nacam ya ما عدوي قلي عدوي قلي لكن واحد صورتقل كان وحوي وسوعشيق سوعشيق نينكو حرطه وهاي وديده لها تاسا مش كبحيس شاو قرا اما عدد وي جرتا عدوي قليس عدديدا waxa la leeyahay ma saddex dhiig bay ku cidda tirsanaysaa mise hal dhiig bay ku cidda tirsanaysaa waa fasaq waa meesha yiraahdaan hal al khul'u فسخ أو طلاق وأنا مثلا فقاد يسوق لفظيه هذه اللي هذا هو الطلاق صدق عدي ترسنه هذه اللي هذا هو فسقنا هل عديكو هل ديك بيكو عد به نعم بعد المركي حتى لو إذا أسبوع صوتي وصل كيف هذا ربيعي وحصول كان المهم هدو يسقو كاني هذا يدو كان طيبة أخيرا هدي لجوه الشيء مهر كيبان عفينا يفر هدي لجوه الشيء في النهاية يسقو ظلم موقوتة مسكوما أو مسلك عليه لكن خلقي ودعية نعم جزيتم خيرا سائل كان استحاد وحليه السلام عليكم الشيخ الله حافظه waxaan wadaa ka shaqeeyaa gawaarida taraaga ah salaadaha ma isku dari karaa sababtoo ah badana taraaga safarkiisu waa safar dheer midda kale taraaga dhexdiisa ayaan ku tukadaa qiblada uma jeesti waayo markasta gaariga dhanka uu u socdo ayaan u tukadaa sharci muxuu ka qabaa haddaad marba safar tahay salaadaha waad gaabin kartaa waadna jamcin kartaa ama taraag saarno ama diyaarad saarno ama darawal ahaw ama rakaab ahaw adiga safar uun ma tahay safar iyo salaad gaabin baa la isku xidhay xataa hadduu safarkaagu dheer badan yahay ood cimrigaaga safar u badan tahay ruqsadii waad haysataa salaadaha gaabi haddaad doontana jamci way sugeen taa waa mid labaad salaadaha traaga dhexdiisa ma lagu tukan karaa haddii waqtigu ku dhaafayo si kalood u tukan kartana aynan jirin dhulka inaad u degtana ayna kuu fududayn qiblada inaad qaabishana ayna kuu fududayn fattaqu llaha ma istatactum waay faaynamaa tuwalluu fathama wajhu llahi waay inaad u jeesataanba waa qibladii ilaah waa goorma waa markay qibladu kaa wareerto ama qiblada inaad u jeesato ay suuroobi weydo way kugu adkaato ama ma ahe salaad sunnah tukanaysaa safarna waa tahay qiblada markaasi laazima inaad u jeesato salaaduna sunnah tahay marka xaalaadka noocaas oo kaleeta ah fathama wajhu llah meeshaad u jeesataanba waa qibladii ilaahay markaas marka laakiin waa inuusan ruuxu aysan u suuroobi karaynin markuu baabuurka horkiisa ku tukanayo waa inuu dhulka yimaado inaysan u suuroobi karayn markuu qiblada u jeedsigeeda ka tagayo waa inay suuroobi weyday inuu qiblada u jeedsado wayna dhacdaa marmarka qaarkood oo dadka taraagyada wada marmarka qaarkood waxay marayaan dhul khatar ah waa duuba taraaga joojiyaba oo ka degaba waaba laga takhalusiba waaba la diliba marka marmarka qaarkood dhul noocaas ay maraan marka waa ku qasban yihiin inay gaariga dhexdiisa ku tukadaan hatta maray soo weydiiyay waxaan ku soo suurtagal maaha meel waxa jira baabuurta loogu talagalay oo la dhigo oo lagu yar nasto oo lagu tukado marka waxay yiraahdeen marmarka qaarkood halis baa ku jirta oo hadii chance lagu helo waaba lagu diliba marka waxa weeye المهم waxa weeye duruufaha noocaas oo kala haday jiraan fattaqullaha mastata'tum salaadaha ka tagin si alla sidii ku suurtagalana u tuko intaas ay ilaahay kugu kalif naam جزيتم خيرا سائلك أفراد وحليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ
waxaa laiga qalay baabasiir dhiig badan baana iga yimid taqriiban 40 daqiiqana waan suuxsanaa marka soonkii ma iga buray mise waa iga ansaxaya soonka waxa ma noqonayo soonkaagu waa insha Allah waa sax dhiig jirka ka soo baxay oo meel dilaacday soonka ma jabiyo waxaa laga hadlayo waxa waa toobinka dhiigga faraha badan ee jirka laga saaro saan maalinta dhib sheegaynay ayaa lagu muransan yahay ma jabiya soonka mise ma jabiyo mas'ala khilaafiya ah laakiin meel la jeexay dhiig ka yimid oo kale waxba soonka ma yeelay naam جزيتم خيرا سائلك ودن بوحوليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد الله كبركيه وحانا هاي نين كدلالة قريها إيا دولالك وحا إيمد نين ولا كمد وحونا يقعد صدي إنا نقوري إيب أهل الراديو كدب وان الله القلي هولقل دير كدب وان هلي قريي وانا صوت صي أو صو أركي وحونا إيويديي نيكي مسؤولك كأها waana u sheegay markay dhiman tahay inaan u geeyo oo kali ah ninkii xaqlaha ahaa ayuu yiri wax yar iisug waxaan la soo tashan ninkii aan shirkada wada ahayn kadib way is arkeen labadoodii waxayna dhaheen rag annaga kamid ah ayaaba horay u arkay gurigan deyn ku qaatana lagu dhahay saas darteed shilin dalaal ah naguma lihidiin ee maxaa tala ah xaqsa ma ugu leenahay dalaal misamaya waxaa ka horeysa horta dalaalnimadu iyo samsaradu waa shaqo banaan oo mubaax way banaan tahay macnaheedu waxa weeye dadka badeecada raba iyo dadka badeecada haya inaad isu keento halkaana aad wax ka hesho hadaadan wax u kala qarinin oo been iyo khiyaano u sheegin wixii sidaas oo kale ruuxu ku helo waa amal mubaaxa xilligii saxaabadii salafkana way jiri jirtay ragna nooca u shaqeysta oo dalaalnimada ka shaqeyso dadka isu geeyo wax ka dhaxelo saa ku shaqeysta waa khidmad banaan waay salahan hadii ruuxu marka uu ninkan hadda su'aasha weydiiyay wixiisu waa khusuuma waxa kale jira laba arimood oo in la fahmo loo baahan yahay midi waxa weeyaan waa su'aal hal ruux khusayso wax ku haysta uusan jirin taasoo kale way fududahay wixii Ilaahay ka faasiina sida waa sida laga jawaabo laakiin haday tahay kiiska wax la isku haysta haduu yahay laba daraf iyo ka badan baa isku haysta fatwa mehe marka waa khusuuma waa dood iyo wax la isku haysto khusuumaadku marka waxay u baahan yihiin dhageysi bay u baahan yihiin baaris bay u baahan yihiin ama maxkamad ama tahkiim labada midkood in ay loo geeyo oo baaraan oo dhageystaan kan muxuu sheeganayaa kadibna ay ka soo saaraan go'aan ka soo saaraan taas marka lagu xukumaa wayla hadii masaa'isha khusuumaadka loola dhaqmo sida masaa'isha fatwada caadiga u baahan wax badan baa halaabay mid baa ku iimaanaya wuxuu ku sheegayaa sidoo isaga la ahayd ee gartiisa ugu go'i lahayd wax kuugu sheegaya hadaad marka tiraahdo adaa xaq leh waa mid ay culimadu yiraahdaan nabi ilaahay daawud mid lagu maagay waa soomaa nabi ilaahay daawud fi suurati maayid suurati as-sad suusaas ma ahayn inna akhi huwa inna hada akhi ya له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب الله نبي نبي الله داود يمد ومركزي دعوة كان سدين دعوة حولين كان ولالك يا سجال إيه سجاشن سبينات بوله أنا هل سبين عليه هل كي يجيبوا يويديستي ولي بهذا الكي يقعد كي أو الرباين يقعد هذه معديلة nin 99 neef leh oo hal neef oo nin walaalkii uu leeyahay ugu jiro ku haysto isiile ma diilay Soomaalida dhahdeen waad gar daranta ay joog marka waxay yiraahdaan nabi ilaahay daawud alayhi salaam isagoo masalada
aan muxuu ahaayey aan sidii la rabay u baadhin oo aan dhagaysigii dhankii kale ay si fiican uga baaran tegin ayuu marka xukumay bay leeyahay waa mid marka gadaal laga leeyahay daawuudu inna jacalnaaka khaliifatan fil ardi waa kale leeyahay markaas uu toobad keenahaye ilaahay u sujuudahaye marka waxa weeye waa sideeda ma saxsana khusuumaadka masaa'isha la isku haysto fatwo lagama dhiibo وإلا وحو قادنا يا روحي وحو ليه وذاتك وإيسو فتوضي حقي وارد كله صوما قرطو إذا قال الله دينه مرة كلا ساري كرتو عامضو فتوي وما كلا ساري كرتو حكم ما كلا ساري مركا وحنديه لها ولالك أي وحي لم ذا أرنت هذا وجيسو هذا استجد سبرين إسكعفينين وجيسو تضحك مع علمه ومضاد ضياله وجيسو هلا يدين كلا ساري هلا دقيستو وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه